aad baan idin salaamayaa. Vloggan waa vlog aan meel dheer ka keenay. Videogan waa waqtigan ogaaday wiilkayga curadina sido inanta yarsaa quruxda badan ee sidaa u dhuuban baan ahaase maxaa ka dambeeyay. Alxamdulillah horta waxaan loo dhibaatoon lama helo. Computerkan waa computerkii ugu horeeyay ilmihiin muuqanino wiigag ah ayaan lay halay tuso walaali muu gaarin joog dhakhtarkii waan iskaga baxay dar wiil baan iska soo iibsaday ilaahay ducadeeda wuu ii aqbalay wallahi waqtigaas wiil iyo gabar waxaan siday maan garanaynin laakiin wiil baan ilaahay weydiisto ilaahay wuu siiyay ilaahay jecela ilaahay tiisan ka dhiman waaye ilaahay intaan haysanin ha siiyo rabbigu raxmaanka awlaad baariya inta haysatana rabbigu ha u daayo de waxaan ku ori waxa la dharkaas gashan doontaa marka dhalato xaaladana waa la iska garanayaa waa xaaladii waleecay hormoonadayda isbedelayay marba waxbaan iska dooni jiray chocolate dhangalo balaayo jinni oo dhan waad iska dareemi karaysan qof aan dhulkiisii joogin oo ehelkiisii ka soo maqan anigina saaxiibnay calankii Soomaaliya calankii Soomaaliya baan isku eriyay waxa la walaal maxay ka daba dhigay masaylada kaama harayo war maxaad iga rabtay waad joog kaama haro wala waad hari dasan sayleetaasina waa kaftan waxay bilowmatay xaaladii irbadaha alla maxaan xaalad soo waqtigan waqtigu ugu horeeyay wiilkayga yar arko alxamdulillah allahumma baarik amiir cadde ilaahay booga habeenkaas sidaan ha xaaladeydu ma sha Allah saan faraxsanaa ma sha Allah markuu horeeyay video cadaynayo alla igu qaato waqtigan waa waqti calooshaydi ay in yar soo yar bixirto oo qaadan lahayn alxamdulillah irbadaay bilowmay xaalad baan la soo maray waxaan loo dhibaatoon waqtigan xumad baa igu dhacday sakaraad waqtigan irbadii baan la qabsaday anaa ismuday xididadayda dhan meel layga mudaan la waayay saasaan ku lugeyn jiray xamar casar kasta lug haddana waan sii naaxayoon waqtigan bishmii sankii waqtigan soo bararayay weeyaan waad iska dareemi karaysaan emotionalka saasaan noqday gibigayga saas baan u bararay irbad baan ku dhaqaaqi jiray alla ma wiilkayga xaaladan la soo maray waqtigan masaajid baan joogay ilaahay baan bariyay alla wiilkayga la yiri war riski baad ku jirtaan labadiinaba aniga wiilkayga ducaysay waqtigan ilbaa waxaan ku risaay noqotay haddana naag adag iska dhigo waan soo baxay magaalkan soo baxay waqtigan Hargeysa alla dhulkaygu macaanaayay wallahi qof kasta halku ku barbaaray weeye waqtigan ishiiba sakaraadaan wali la sii ahay haddana xaaladii emotional baan iska ahay ilmahayga hadduu in yar nuuxsan waayo dhakhtar baan u carar jirayba maxaa ku dhacay nawaa wuu bad qaba alla maxaa la soo maray wiilkayga yar laakiin alxamdulillah waqtigan ciid bay ahayd de gurigayga baan ku meel maan tagi jirin gurigaygan ku ciiday wax kale kuma garataane xabaashi hooyaday noloshaydi gurigii hooyaday haddaan halkaa tagin ma nafiso de waa kan waqtigii dambe islaantaasaan noqday saasaan u barar xaaladuhu saasay ii jeexjeexeen tacab bacda raaxa baa la yidhi laakiin quruxdaydii waxaa ka muhiimsan waxaan haysto waqtiganna waxaan ku uri gobsan baa gurigeedii aanu tagnay oo qaaci noogu sameynayso qaaci ku lahayd de waa kaasaana loo heesayaa jag akan ileedina adeer soo dhawow waa kan mar labaadkan xamar tagay waqtigan xamar baan joogaa haddana emotional baan iska ahay de xaaladaha jeexjeexay wax kasta waa laga noolyahay waqtigan Hargeysaan ku soo noqday alxamdulillah wiilkayga yaraadee waanoo rajadeedii iyo farxadeedii halkaa ku sita ma sha Allah videogan kalena wuxuu kulmiyay aabe iyo inantiisii dhasheedii wallahi maalintaasna aabahay way garab taag